nin dhalinyaro ah ayaa wuxuu yimid nin sheekh ah, wuxuuna ku yidhi sheekha waxaan iska goyn la'ahay arrin aan dareemayo inaysan fiicnayn, arrintaas oo ah in marka aan suuqa marayo aan fiirfiiriyo gabdhaha yacni aan egeego anigoo marba midisha la raacaya. Haddaba sheekh waxaad ii sheegtaa sida aan arrintaasi nafteyda uga reebi lahaa. Ninkii sheekha ahaa ayaa wiilkii u dhiibay galaas caano ah oo buuxa, wuxuuna u sheegay inuu geeyo meel isla markaasi cabaar u jirtay, wuxuuna ku yidhi galaaska ayaysan ka daadan dhibic caano ahi. Sidoo kale wuxuu raaciyay yacni ku daray wiil kale oo ul wata, wuxuuna ku yidhi ku dhufo usha haddii dhibic caano ah ay ka daadato. Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa qaaday caanihii suuqa ayuuna lasii dhex maray, ugu dambeynna wuxuu gaadhay meeshii loo baahnaa. Kadib sheekhii ayuu ku soo laabtay isagoo faraxsan una sheegay inuu ku guuleystay hawshii loo diray. Sheekhii ayaa weydiiyey sida ay ugu suurto gashay inuu caanaha geeyo meeshii loo baahnaa iyadoo aysan waxba ka quban yacni waxba ka daadan. Wuxuuna ku jawaabay wiilkii, waxaan ka baqayay suuqa dhexdiisa laygu garaaco oo aan dadka hortooda ku ceeboobo, sidaasi darteeda waxaan diiradda saaray yacni ku dadaalay inaan ilaaliyo galaaska caanaha ah. Sheekhii ayaa haddana weydiiyey inuu arkay dadka hareerihiisa marayay intii uu siday caanaha. Wiilkii ayaa yidhi qof aan wejigiisa arkay ma jiro oo xataa wixii waddada hareeraheeda ka dhacayay lama socon. Sheekhii ayaa wiilkii ku yidhi haddaba waa sidaas oo kale qofka muslimka ah, wuxuu ka cabsadaa Allah subxaanahu wa tacaala iyo in maalinta qiyaamaha makhluuqa hortooda lagu ceebeeyo. Sidaasi darteeda waxa uu ka dheeraadaa qofka muslimka ahi dhammaan waxa uu Ilaahay xarimay. Allah inaga dhigo kuwii si dhab ah uga cabsada oo ka dheeraada wuxuu Ilaahay xarimay oo la yimaada wuxuu Ilaahayna faray subxaanahu wa tacaala.